caawa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaaraadka wararkii ugu dambeeyay soo kordhay waxay noo joogtay iyadoo Iiraan ay ku dhawaaqday inay xirtay Hormuz mar haddii Hormuz la xiray maxaa ku xigi kara Israa'iilna hadday sii wado garaacista Lubnaan iyaduna markay la garaaco sheekadu cirka gashay haddaba warar hoose oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta waxay leeyihiin in Mareykanka uu aad uga carooday talaabada Netanyahu uu toos ula bareeray inuu heshiiska hor istaago oo uu markaa baabi'iyo waxaa lagu wargeliyay Israa'iil sida ugu dhaqsaha badan inay dagaalku joojiso marka ay joojinaysana inaysan mas'uuliyiinta Mareykanka ee Washington aysan la soo hadlin hal meel la idin diraa meeshaas u sheegay inay xabadda joojiseen meeshaas waxay qaabilsan tahay xabadda hadda sii wadaan wixii ay sameyn lahaayeen walla soo bareeray markaa Netanyahu iyo Trump walla soo bareeray ninkii Trump abu xanaaq maamulkiisa durbaba waxay bilaabeen inay ninka xukunka dhaafiyaan warbaahinta waxay qoraysaa in Trump iyo maamulkiisu ay hadda dhanka mucaaradka Israa'iil ay hadda u janjeersadeen annaga awalba meesha kugu weynaa leeyahay keenta sheekadaas inay marka ninka meesha ka tuuraan nimankii marka Israa'iil marka maxaa la yiri hadda xabadda sii wadaan iyo hadda joojinaysaan nimankaas ay qaabilsan waa taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee la CENTCOM macna baashu waxay tagtay gacan militariya tagtay tara marwar waa dhaafuulay haddaba markaa reedo soo goordhow warbixintan waxaa qortay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay mas'uul Mareykana ayaa rasmi u sheegay Israa'iil inay la xiriirtay oo ay gaarsiisay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo CENTCOM inay joojisay xabadii ay ka waday Lubnaan haddaba mas'uulkan oo u warramay telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in Israa'iil ay la soo xiriirtay oo ay u sheegtay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo CENTCOM inay markaasi joojiyeen xabad joojintii ay ka wadeen dhanka xabadii ay ka wadeen Lubnaan inay joojiyeen taas waa mid intaas kaliya ma idin kaafine ma waa ina ku dhawaaqdaan adiga iyo wasiirkaaga gaashaandhiga xabad joojin ina ku dhawaaqdaan amara la siina meeshaan ninkii Trump meel xun la isla tagay adiga iyo wasiirkaaga gaashaandhiga waa ina arikaa ku dhawaaqdaan CENTCOMna la xiriirtaan oo taliska dhexe ciidamada Mareykanka kadib marka wixii kale oo aad sameysaan waa iswarsanayna nimankaanta iyaguna waa mixna socota waay wax kasto ay sameeyaan waxbay ku daba qataarayaan ilaahay amarkiis nimankan ilaahay baa loo sheegay waa wax iyagoo dhasaas isaga daba wareegayaan nimankii marka maxay raadeen xabadda Lubnaan waa joojinay laakiin ciidankeenu meeshu joogo ma ka dhaqaaqayo meesha ayaga ma iska leh dhulkoodii miya Lubnaan dhulkeedii waay haye meesha hadda taagay ma lagu daynaa dhul islaameeda iska jooga waa ku faysteena maanfaca dhulkaagii aad maye meesha joogaan macnaheedu maxay tahay ma la is dhaafayo xisbullah ayagu waa isku dhacayaan maxaa la sameynaa nimankan waxay xabadda in la joojiyo kadibna ay ka baxaan heshiiska Iiraan iyo Mareykanka ay galeen haddaba marka aad tuso sheeka waaliya nimankan meesha ka socota haddaba marka wararkii ugu dambeeyay waxa leeyahay kanaalka la yiraahdo 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa baahiyay galabta in marka ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Israa'iil Katz ay amar ku siiyeen ciidanka Israa'iil inay xabadda joojiyaan laakiin aysan ka dhaqaaqin oo aysan ka soo bixin goobaha ay Israa'iil ka haysato koonfurta Lubnaan ma u jeedaa marka waa nin gurigaagii inta soo galay daaradda xabadda ku joojina ku dhacay adigana qolka chiefka ku jirtaa ma soo bixi kartid ninka gurigiisii ma joogo wuu soo baxay ganjaalku soo galay gurigaagu soo galay guriga islaameed dhexdiisa waxay rabaan meesha joogayna see ku joogaan dagaalka markii hore maxaa keenay xisbullah dagaalka maxaa geliyay war dhulkeena nooga bax iyo meeshan waa jooga Israa'iil al-Kubra raadinayaan Israa'iisha weyn marka xaalku marka halkaas jooga marka sheekadu markay halka joogto
oo ayagu ay ku dhawaaqeen inay xabadii Lubnaan joojiyeen ayaa hadda marka waxa la isku dayayaa Iran in la qanciyo Iran in laga gardaran yahay oo heshiiskii Mareykanka wixii uu ballan qaaday ay jabeen waa loo jeedaa Iran marinbiyoodka Hormuz waa xirnay yiraahdeen wax taraamo war ka soo baxay male wuu og yahay meesha la iska haysto haddaba marka waxaa lagu dagaalamayaa warniman yahow kulankayu baaqanin Netanyahu fursad kale aysan u noqonin inaan anagu kala boodno annaga horta aan soo nimaadno heshiiskii aan galnay aan dhamaystirno Pakistan marka waxay u xusul duubaysaa Netanyahu inaan marnaba fursad la siin oo nimanka kano hawsha inta ka dhiman ay dhamaystirtaan yaa soo baxay marka waxa soo dhaqaaqay ra'iisul wasaarihii Pakistan iyo taliyihiisa ciidamada waa labadii nin oo Pakistan ugu sareysay Switzerland imaanayeen sibal arinka xoog loo saaro oo heshiiskan Netanyahu uu rabo inuu burburo inaan Netanyahu laga ogolaan Pakistan way dagaalamaysaa haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arinka laga qoray haddaba marka waxaa la sheegayaa wararkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin Al Jazeera waxay leedahay Pakistan waxay si rasmi ah u sheegtay ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidamada labaduba inay barito u safrayaan Switzerland xukuumadda Pakistan mas'uul ka tirsan ayaa u sheegay Al Jazeera in ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif iyo taliyaha ciidanka Asim Munir ay u safri doonaan barito waddanka Switzerland si ay xooga u saaraan arinta ku saabsan wada hadallada waxay sidoo kale sii waceen madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waxay dhahaan adigana imaw meesha arikan aan dhamayn Iran arikeedu waa la xalinayaa xabadaha laga joojiyo Lubnaan soo madhinaa taas waa la xalinaa Hormuzna dib loo furaa laakiin yaan fursad la siinin Netanyahu iyo kooxdiisa oo iyagu ku dagaalamaya in waxa kan meesha laga saaro haddaba marka dhanka Mareykanka iyaguna war ka soo baxay daanadii la wadaago wargeyska la yiraahdo Axios wuxuu leeyahay Vance oo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu u safri doonaa maanta Switzerland aadi doonaa waxa waaye wuxuuna sheegay in J.D. Vance uu halka u safri doono madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka si uga qayb galo wada hadallada la filayo axadda inay markaa halka ka dhacaan oo Iran iyagu ay halka markaa isku wareystaan oo ay ku kulmaan marka aragti marka halkaas uu joogo Pakistaaniyiintii marka waxay bariyayaan Iran waxay leeyihiin wafdigiina sare soo dira ragii sarsare hala soo diro qaalibaaf iyo hala soo diro marka saddex hogaamiyaal oo wadanka madaxda ugu sareysa madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ee ninka garsoorka madaxda u ah saddexdooda ayaa shir goordhow u soo dhamaaday waa saddexda Iran ayatullaahiga marka laga soo tago waa saddexda nin ee hay'adaha sharciga wadanka madaxda ka ah madaxweynihii gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxii garsoorka hay'adaha garsoorka wadanka maxaa yeelnaa wada hadalkii nimankan Lubnaan dayn mayaan maxaa sameynaa marka ayagii warkii ka soo baxay ayaan idin la wadaagayaa haddaba Iran ayaa waxay ka hadashay wada hadallada soo socda madaxtooyada Iran ayaa sheegtay in kulan uu gudoominayay madaxweynaha Mas'uud Pezeshkian oo ay ka soo qayb galeen afhayeenka baarlamaanka Qaalibaaf ninka la yiraahdo iyo madaxa garsoorka ninka la yiraahdo Mohsin Eji ayaa waxaa lagu falanqeeyay wada xaajoodyada soo socda iyo siyaabaha loo ilaalin karo danaha qaranka waxa intaas lagu daray in ka qaybgalayaashu ay qiimeynayeen xaaladihii ugu dambeeyay dagaalka dhawaan dhacay waxayna sidoo kale ka wada hadleen siyaabaha lagu xoojin karo adkaysiga dalka loo xoojin karo iskaashi hay'adaha dhexdooda ah iyo sidii loo dadejin lahaa magdhowga iyo khasaaraha dib u dhiska in la helo iyo sidoo kale in lala socdo xaaladda jawiga Lubnaan iyo xaaladeeda saddexdooda marka waxay arrimahaas ka arinsadeen kullay marka waxaa la filayaa wafdi ballaaran Iran iyadana inay marka u dirto Switzerland oo loo malaynayo
qaalibaaf iyo ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Caraaqji iyo ragga inay xagga aadi doonaan laakiin sheekadu aad isugu milqantay Pakistan marka waxa leedahay annaga iyo Qatar ayaa Switzerland tagi doona oo halka hawl badan ka qaban doona si wixii aynu soo dhisnay meeshii mahashu marayso uusan Netanyahu uga faa'iideysan inuusan naga kala daadinin ciidanka Israa'iil waxay sheegeen askari inuu ka dhintay 12 kalena ay ka dhaawacmeen oo uu ku jiro sarkaal sare kadib dagaal dhacay saacadii la soo dhaafay koonfurta Lebanon ciidanka Israa'iil waxay yiraahdeen waxaynu go'doominay oo hareereynay god aan rumaysanahay inay ku jiraan dagaalyahanada Hezbollah laakiin isla wax yar kadib Hezbollah ayaa war soo saartay waxay leedahay waxaas wax ka jira ma jiraan waa been ciidan aan leenahay oo la hareereeyna ma jiraan marka xaalku halkaas uu maraya haddaba waa arki doonaa wixii akhbaaraad kale soo kordha bal adikuna fakarkiina aragtidiina noo soo qora waxay idin la tahay sheekaduna maxay ku dhamaanaysaa isleedii dagaalkan ma sidaas uu ku joogsanaya isleedihiin mise wax kale iman doona Trump dhowr wajiyo aad hadda dagaal toos ah mucaaradkii ayaa dhankiisa hadda laga sheegayaa Israa'iil sidii uu meesha uga saari lahaa Netanyahu iyo kooxdiisa lagu tilmaamo mayal adag inay yihiin barnaamijkii waa naga inta asxaabay intaan markale kulmayno nabad